gudoomiyaha degmada Dharkiinley Guhaad Sheekh Xasan ayaa faahfaahin ka baxshay howlgalla ciidamada ammaanka ay xalay ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmadaasi Dharkiinley. Howlgalladani ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa la dagaalanka waxyaabaha maandooriyaha isla markaana ciidamada ammaanka xalay howlgallo xoogan ay kula dagaalamayeen ragga isticmaala maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsada sidoo Shabeelle ugu xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Dharkiinley. Dhanka kale waxa uu sheegay gudoomiyaha in howlgallada xalay lagu baadi goobaye rag hubka sharci darada ku dhex wata degmadaasi isla markaana xiliyada hamiinkii dhaca iyo boob u geysta shacabka ku dhaqan degmadaasi kuwa oo la sheegay in ka cawanayeen rag sita qoryo oo xiliyada qaar dadka telefoonada ka dhaca. waxaan bilaabnay howlgal iyo roondo socod ah annagoo howlgal ka sameynay guryo target ahaa oo nolo sheegay in mukhadaraadka lagu diyaariyo laguna iibiyo. runtii markii aan guryahaas baaritaan ku sameynay falilah alxamdu targetkii aan lahayn waxa uu noqday in howlgalkii aan sameynay caawa aan wax mukhadaraad aan soo arkin, taas oo guul weyn ah. balse waxaan uga digayaa dadka ku gada mukhadaraadka degmada Dharkiinley in ay joojiyaan, ciddii lagu qabtana sharciga la horgeeni doono. kadib waxaan xaafadaha ay ka kooban tahay qaybo badan oo ka mid ah waaxda shanaad aan ku soo marnay socod lug ah annagoo u korgalaynay xaaladda nololeed ee dadka, ganacsiga iyo amniga oo aad arkayseen in dadka xilli habeen ah ilaa 5 saac ilaa 6 saac ay ku gaaraan ganacsigooda, taas oo guul weyn ah alxamdulilah. waxaan rajaynaynaa in aan shaqadaas sii laba jibaarno, sii joogteyno, amniga degmadana ay noqdo mid ka mid ah degmooyinka ugu horeeyo. mana aqbalayno in kooxa hubeysan oo hadday noqon lahayd military, hadday noqon lahayd macawiisley iyo qolooyin kale oo dhac geystaba ma aqbali doono. waxaan halkan fariin uga dirayaa saraakiisha militariga ee degan degmada Dharkiinley ciidankooda in ay guryahooda ku haystaan, aan la aqbali doonin askari hubeysan oo dhar military ku libisan ama dhar shacab ku libisan in uu xaafadaha soo galo. haddii area-da ay saraakiisha degan tahay dad lagu dhaco ama falal ay ka dhacaan waxa mas'uuliyadda qaadi doonaan saraakiisha militariga haddii la yiraahdo. fariintaasna waan gaarsiinay maxkamadda ciidamada qalabka sido. hadalkani gudoomiyaha degmada Dharkiinley ayaa imaanaya xilli maamulada degmooyinka gobolka Banaadir ay la dagaalan kula jiraan waxyaabaha daraagiska iyo sidoo kale rag la sheegin xiliyada qaar ay dhac u geystaan shacabka ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir.